بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله. ما أنت waxaynu halkan ku duubaynaa tixgabaya oo kooban oo dheerayn oo kaftan ah magaceedana la yiraahdo jaajaale. sida magaciisaba ka muuqata gabaygu waa jaajaale. wuxuu ka hadlayaa waxyaabo fara badan oo nolosha iyo siyaasadda waddanka ka taagan quseeya. wuxuu kaloo magacaabayaa shakhsiyaad gaar ah oo siyaasiyiin ah oo waddankeena laga yaqaan oo mid walba dhaqan ama dabci uu caam ku yahay oo ummaddu ku taqaano uu ku xusaayo. gabaygu raggaa uu la kaftamayaa raalli ha la ahaa. wuxuu gabaygu ku bilowday jaajaale jamhuuriyaddan waxa aan ku nacay waa bilaajaho. jamhuuriyaddan waxa aan ku nacay waa bilaajaho. dalkii koox jumladataan u nacay johoradiisii junuud dhowr wasiiraan u nacay sheeko jaan rogan dar kalena jallaafaan u nacay jaamacow badan judhaba waxaan wasiir qabo ku nacay erayo jaajaa sacadna jilicsanaantaan ku nacay laba jawaablaah maxamuudna jeeskaan ku nacay reer jeclaysiga jibbona ina caddaannaan ku nacay oo hinjeestada cukusana gerjigantaan ku nacay muranjikaaraa duqana jaakidhaaddaan ku nacay juuqba jaaqlada. duqu waa madaxweynaha. mahmaha soomaaliyeed baa tidhaahda laba aamuskay ku fiican yihiin oo waa doqonka iyo diradiraalaha. labana hadalkay ku fiican yihiinoo waa duqa reerka iyo diinfidiyaha. markaa dee madaxweynaheennu waxay ahayd ila waa duqeenniiye inaanu inaga aamusina uu inala hadlo oo inoo warramo oo ina waaniyo. dalka waxaa ka jira xaalado xasaasi ah hadday tahay xaalad dowlad xumo iyo xaalad doogsin la'aaneed. waxaa ka jira xaalado badan oo sixir bareer ka mid yahay. markaa xaaladahaasoo dhan inuu madaxweynuhu inala dareemo oo inala hadlo oo waxaa la yidhi rag aamusay iyo riyo aamusayba reerkoodii gabe aynu madaxweynihii kala war hello ayay ahayd. laakiin madaxweyne wuu aamusay. haddii uu aamusayna labuunbuu mid la aamusay ama jiruu la aamusay ama jaakidhaad buu la aamusay. yacnii ama xanuun ama xeelad odhan mayno madaxweyne wuu jiran yahay oo wuu bukaa. ilaahayba kuma keeno bukaane. waxaan filayaa waxa uu la aamusan yahay inay jaakidhaad tahayoo ay xeelad siyaasadeed tahay oo arrin siyaasadda ka mida ay tahay. wax walba ka yaab. markaa duqana jaakidhaaddaan ku nacay juuqba jaaqlada xadhigguu ka jaray baan ku nacay jaako saylici. madaxweyne ku-xigeenkii cabdiraxmaan saylici doorkiisii howleed wuxuu ku egaaday maantana meel buu xadhigga ka jaray iyo xaflad lagaga hadlaayay HVIDs ayuu haddii alla raalli ka noqonayo ayuu joogay. guurtida jaqaaq baan ku nacay jaamba jaamba ah. guurtida jaqaaq baan ku nacay jaamba jaamba ah. guurtidu waxay ahaayeen golo dhaqan ayay ahaayeen. golo siyaasadeed may ahayn. golo samatalis bay ahaayeen. golo dowladeedna may ahayn. golo dadweyney ahaayeen. golo naxle may ahayn. golo nabadeed bay ahaayeen. golo guulwade may ahayn. golo guurti bay ahaayeen. laakiin guurtinimadii way dhaawacantay. laba qodob baa dhaawacay. qodobka koowaad waxa weeye raggii guurtida ahaa ee somalilan abaalka ku lahaa ee nabadgelyadeeda ka shaqeeyey oo baxay allaha u wada naxariistee. iyo oo ragga meesha joogay beddelay ay yihiin inamadoodiioo aan guurti ahayna dhallinyara. markaa wixii inan yari lahaan jirayba leh inamada guurtidii bedelay waxay noqdeen
inama yaryaro wixii inan yari lahaan jiray balle qodobka labaad ee guurtinimadii dhaawacay waxa weeye gudoomiyaha golaha guurtida oo ah nin siyaasina waynu naqaanaa marka guurtida jaqaaq baan ku nacay jaamba saleebaan juqaalkaan ku nacay jaahilkuu yahay Salebaan Maxamuud aadan waa gudoomiyaha golaha guurtida jaahil markaan leeyahay jaahilnimo aqooneed maaha jaahilnimo akhlaaqeed ayaan sheegayaa gudoomiyaha habdhaqankiisa aad yara moodaa inuu habdhaqan jaahil yahay waxaanu leeyahay gudoomiyenimadiisa waxay ku soo ururtay Salebaan 3 qodob qodobka koobaad waxa weeye haddii mashruuc dawladdu wada taaba yimaado oo guurtida la hor keeno socodsiiya qodobka labaad waxa weeye haddii xildhibaan golaha ka mid ah arrintaa ka hadlo xildhibaankaa saara qodobka saddexaad waxa weeye haddii doorashada la soo hadal qaado xukuumadda sanad ugu dara saddexdaa qodob ay gudoomiyenimadii Salebaan ku soo ururtay waa socodsiiya mashruuca dawladda saara xildhibaanka ka hadlay iyo sanad ugu dara xukuumadda Salebaan juqaalkan ku nacay jaahilku yahay wakiiladana jawrkan ku nacay jeeba buuxsiga cirana jugaha feerkan ku nacay jiimka diriireed muusina jafaafkan ku nacay jaaha giir kale jirjiroolannimadan ku nacay Faysal Jibirjaan jilbisnimada halistan ku nacay jaraha buuba jinka waran cadana waxaan ku nacay jaga xildoondoon Axmed Muumin jalaqdan ku nacay hadiya jeeraal awil soo jireenkan ku nacay uur jiriidlaha jaxar maxamed xaashaan u nacay gooni joognimo jaxar maxamed xaashi ayaan u nacay gooni joognimo jifiyo buur madow baan u nacay jilib xayeysiin cali gurayna jibintan ku nacay jiidha aadmiga jamaaliyadna hebel baan u nacay jooga quruxeed laba nin buu gabaygu qariyay laba nin ayuu magacyadooda qariyay marka waa hebelo jamaaliyadna hebel baan u nacay jooga quruxeed waa nin quruxun la shiriyimi ragana qurux loogama baahnay qiimaha looga baahay ninka uu qariyay magaciisa gabay ninka labaad waxa weeye shalfis dagamsan iyo baan u nacay hebelna jaajuus ninkaasina basaasnimo inoolay reer saaxil jiibtan ku nacay jaan la'aanta ah jujuub dhiibi walbaan u nacay nalama joogtaan jaakeedna keedaan u nacay jarane feedha waa jaakeed yaroo diraysa oo shirkaddan dhiibi wale dekada la wareegta ay u gelisay shaqaalaheedii jaakeedna jujuub dhiibi walbaan u nacay nalama joogtaane jaakeedna keedaan u nacay jarane feedha sheegaanna taasaan u nacay labada jiidood jariimado dagaal waxaan u nacay janaanadeennii jaad lagu kiraystaan ku nacay jiifafkii dhaqan garsoorkana janjeer baan ku nacay jebinta qaynuun jigjigaan u nacay dhaantadii gabayna jiiftayn jigjigaan u nacay dhaantadii gabayna jiiftayne jid la mariyo waxa aan u nacay jaar Itoobiya waxaan jiilkan heesaha u nacay jiidi waa laxan asmacoday jacayl baan u nacay cudurna juudaan jilis qootaan u nacay jaalna reer xamar jabhadna SSC baan u nacay reer jubbana sheekh jawi kululna xeeb baan u nacay hoy la jiifsado jamacna mawlacaasaan u nacay jeenigaa rogan hablii jimidhyaraan baan u nacay jilabka laaleeg jirrina wiilashii baan u nacay jeega xiiraa jiilaalna waxa aan u nacay maanta kaa jira jaajaale halkaasuu joogaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu